cabdifataax afhayeenka falaagada TPLF Getachew Reda oo ka hadlay dagaalka waqooyiga Itoobiya 7 maalmood ka hor ka qarxay oo welina socda waxa uu sheegay dagaalka in uu yahay mid falaagada lagu qasbay ayna isku difaacayaan waa sidoo hadalka uu dhigay waxa uu sheegay dagaalkani in uu yahay mid aan loo baahneen oo la baajin karay balse ay qasab noqotay haatan inay aayahooda markaasi ay u dagaalamaan dagaalkana sida uu ku bilowday welina uu socdo waxayna haystaan magaalada Qobo wuxuuna sidoo kale beeniyay in magaalada Waldiya oo ka tirsan deegaanka Amxaarada ay qabsadeen falaagada TPLF sida warbaahinta caalamka qaarkood ay tabiyeen isagoo sheegay arintaas inay waxba ay ka jirin balse dagaaladu ay ka socdaan aaga Qobo galbeedka deegaanka Tigray iyo meelo kooban oo xuduuda deegaanka Tigray iyo Cafarta ay wadaagaan iyadoo dad tiro badan ay ka soo qaxeen deegaanada amaba aagaga ay dagaaladu haatan ka soo cusboonaadeen cabdiraxmaan dhanka kale afhayeenka fariin buu u diray qowmiyadaha ku nool Itoobiya gaar ahaan Soomaalida muxuu sheegay marka cabdifataax afhayeenka TPLF Getachew Reda wuxuu fariin u diray qowmiyadaha dalka Itoobiya ku wada nool wuxuu ugu baaqay inay qayb ka noqon dagaalka haatan ka soo cusboonaaday waqooyiga Itoobiya qowmiyadaha uu fariinta gaarka u diray waxa kamid ah Soomaalida dalkaasi degan gaar ahaan deegaanka Soomaalida dhalinyaradooda hadii hadaladiisa sida uu dhigay aan ereeray u soo qaadan waxa uu yiri dhalinyarada reer Cabdille ee Dhagaxbuur waa sidoo hadalku u dhigay inay halka ka yimaadaan oo ay yiraahdaan walqayt oo ah deegaanka haatan isku hayma dagaalada ay ka socdaan Amxaara ayaa iska leh oo ay u halgamaan sabab ku kalifaysa maxay tahay marka ma jirto wiir sabab ay dhalinyarada Soomaalida ugu dhamaanayaan oo ay dagaalkan ay qayb uga noqonayaan waa sidoo hadalka u dhigay afhayeenka TPLF Getachew Reda wuxuu sheegay halganka iyagu ugu jiraan inay aayahooda u halgamaan waa sidoo hadalku u dhigay xabada ay ridayaan in ay kala garaneen Soomaali Amxaara amaba cid kale marka looma baahna wiiri dhalinyaradeen inaan bila sabab aan u dilno amaba aan u leyno isaga oo sheegay dagaalka xoogiisu inuu yahay mid qasab ah laguna qasbay oo hogaaminayo ra'iisul wasaaraha dalkaasi Abiy Ahmed una dhaxmarayo deegaanka Amxaarada iyo deegaanka Tigray oo dhul isku haysta yiri afhayeenka wuxuu kale oo ka hadlay cabdiraxmaan xaaladda bini'aadanimo ee Tigray ka taagan arintaas muxuu xoga oo dheeraada oo uu sheegay cabdifataax afhayeenka TPLF waxa uu ka hadlay xaaladda bani'aadanimo ee ka jirta deegaankaasi Tigray wuxuu yiri tani markii uu bilowday dagaalka waqooyiga ee u dhaxeeya dawladda dhexe Itoobiya iyo waliba falaagada maruu ka hadlay macluusha haysata shacabka deegaanka Tigray wuxuu sheegay inay shacabka Tigray ay haysato macluul iyo gaajo aan taariikhda hore u soo marin afhayeenka oo soo xiganaya hay'adda cunnada adduunka WFP oo warbixinta ay ka soo saartay xaaladda macluul ee deegaanka Tigray ka jirtana wuxuu sheegay in 980 in ka badan shacabka Tigray inay haysato xaalad macluul oo maalintii hal mar ka badan wax ay cunaan aysan haysan waaba hadii ay helaan ayuu yiri cabdifataax dagaalka waqooyiga Itoobiya oo 22 bilood ka hor soo bilowday oo muddo 5 bilood u muuqday mid istaagay ayaa 7 maalmood ka hor dib uga bilowday xadka ay wadaagaan deegaanada Amxaarada iyo Tigray walow uu ku siifaday dhinaca Cafarta taniyo inta uu dalka Itoobiya majara u qabtay Abiy Ahmed waxa soo taagnaa khilaaf siyaasadeed oo u dhaxeeyay isaga iyo mas'uuliyiinta sare ee deegaanka Tigreega iyo xisbiga talada deegaankaas ee TPLF oo markii dambe 4 bisha November 2020 gacan ka hadal isu bedelay colaadda labada dhinac u dhaxaysa sidii loo soo afjari lahaa waxa waan nabadeed ka dhaxwaday midowga Afrika Mareykanka iyo wadamo kale inkastoo dadaalada dhinacyadaasi ay wadeen oo miro dhal noqon